kala duwan ee dawladda ku meel gaarka ay Muqdisho ka wadeen howlgallo lagu soo qabanayay ciidamada dawladda ee dhibaateeya dadka shacabka iyo kuwa hubka sida sharci darrada u leexsita magaalada ayaa waxaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda ku meel gaarka ay ku dhawaaqday xafiis cusub oo ay ka furatay dugsigii sare ee Banaadir degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa isla maanta halkaasi ku xukuntay 9 askari oo ka tirsan ciidamada militariga dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya kuwaasi oo lagu soo qabtay howlgalkii magaalada ka socday maalmihii u dambeeyay. Waxaana askariiba lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dawladda Xasan Maxamed Xuseen Mugaab. dadka ama askarta sida sharci darrada ah ee uga soo baxaan goobtoodii shaqo magaalada la soo galayaan qoryaha sidoo dariiskii ciidanka haystaan qoryahoodii ku labisan oo arkaysaan ayay xaafadii la soo galeen qaarkood ayagoo wax fartaysanaya lagu soo qabtay qaarkood ayagoo dariiqa iyo xaafadii qoryaha la maraa shacabka ku argixinaya la soo qabtay marka howlgal loogu hortagayo yani howlgallo waxa ay socdo bariyahan la doonayay in looga hortago askarta ka soo tagaysa goobtooda shaqo ayagoo hubkoodii iyo dariiskooda haystaan si aan howlgalkaas kaalinta naga aadan aan kaga qaadano waxaan maxkamadda goobta ka furnay dugsigii sare ee Banaadir halkan ayaan nagana xafiiskan ka furnay oo ah maxkamadda goobta wuxuu nagu sii furnaa doonaa ilaa ma ay intuu ka dhamaanayo howlgalka oo laga sifaynayo kuwa maryaha iyo macawiista iyo tuutaha isku wataan magaalada la soo gelayaan qoryaha 8 kamid ah ama indhahe 7 kamid ah way horeysnaayeen qoryaha ku horeysnaayeen arkaysa maxkamada ayuu wax dilayay ayuu wax boobayo si toos aan loogu soo qabanin waan u khafiifinay 6 bilood emergency ayaa gibadooda waxa gudoomiyaha degmada Hodan ee dawladda ku meel gaarka Cabdi Salaad Dabanay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan xafiiska cusub oo ay maxkamadda ciidamada maanta ka furatay degmada Hodan waxa uu sheegay in ciidamada dawladda qaarkood ay ku qabeen dhibaato xoogan isla markaana ay hor istaageen howlihii loogu gargaarayay dadka ku dhibaataysan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.